رئيسل وزراء حكومة فدرالك الصومالية حمزة عبدي بري وزير كامنك حكومة الصومالية دكتور محمد شيخ أحمد علي دودشي oo kormeeray taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa kula lagu xoojinaya amaanka dalka la yeeshay saraakiisha qaybaha kala duwan ee talisyada ciidanka. Kormeerkan uu maanta ku tagay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ku aadanaa sidii loo xoojin lahaa amaanka guud ee dalka. Ra'iisul wasaaraha ayaa kormeeray qaybaha ay ka kooban tahay xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliya ee Komanda Boolisiya isagoona warbixino ka dhageystay hoggaanada ciidanka sidoo kalena booqday xarunta ciidanka ilaalada xeebaha oo lagu soo bandhigay hawlaha ay qabtaan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa xusay ahmiyadda ciidanku ay u leeyihiin nabadda iyo isdhexgalka bulshada waxaana uu kula dardaarmay saraakiisha uu la kulmay in la xoojiyo amaanka xilliga ay socdaan hawlgallada dalka looga saarayo ururka Al-Shabaab. Ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale ku booriyay shacabka Soomaaliyeed in kaalintooda ay ka qaataan nabadgelyada waddanka. waxaan ognahay ahmiyadda booliis uu leeyahay meeshu rabo ha joogo. hay-addan waxay udub dhaxaad u tahay bulshooyinka casriga ee adduunka ku nool noloshooda qaybaheeda kala duwan oo dhan ayay halbowle ama udub dhaxaad u yihiin. meel kasta oo hay-ad dowladeed ay ka shaqayso waxay links la leedahay toos ah ciidanka booliska Soomaaliyeed. marka waa ciidan la-aantiis aysan hay-adaha dowladdu ay adag tahay inay shaqeeyaan sida adduunka oo dhanna ay ka tahay waa sidaas. ama horumar ha noqoto xataa amniga ka sokow arrimaha bulshada, arrimaha horumarka, arrimaha dhaqaalaha, infrastructureska meel aanan links toosa kala lahayn oo aan boolisku aysan base u ahayn ma jirto. sidaa darteed waxaa la oran karaa waa qalbiga ama wadnaha ummadda. haddii uu qalbigu xumaadana jirka inta kale o dhan way xumaanaysa, haddii uu fiicnaadana inta kale o dhan way fiicnaanaysa. marka boolisku haddii uu fiicnaadana waddanku wuu fiicnaanaya, haddii boolisku xumaadana waddanku wuu xumaanaya. macnaha sidaas ahmiyadda intaas leeg ay booliska ama hay-addani ay u leedahay qaranka. dalkeenu hadda wuxuu ku jiraa xaalad ka duwan 3 bilood ka hor siduu ahaa ka bedelan yahay. waxaan ku jirnaa xaalad dagaal, dalku wuxuu galay dagaal. mar haddii dagaal lagu jirana idinkaa yaqaanaa dhaqanka dagaalka uu leeyahay. waxa ugu horeeya oo la rabo waxaa waaye waa isbedel guud. isbedel shaksi ma aha oo qof lagu bedelay macnaheedu ma aha, laakiin waxaa waaye behaviorkii dhaqankii dadka, hadday tahay bulshada caadiga ee shacabka iyo hadday tahay hay-adaha dowladda oo ay kow ka yihiin ciidamada amnigu. waxaa laga rabaa isbedel madaxa maskaxda ah iyo isbedel shaqada ah iyo isbedel mas-uuliyadda la isa saarayo intay leeg tahay isbedel adkaysiga. kulli isbedel baa la rabaa oo dabiic dacal ah ayaa la rabaa. Sada Cabdi Taaliil, Universal TV, Muqdisho.